maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybteeda 6aad waxay ku dhawaaqaysaa xukun dacwad ciqaabeedkii loo heystay eedeysanayaasha kala ah 1 Sayd Cali Suurad Macalin Cabdi 25 jir ah inadeynaba Muqtaar Sheekh Cali ku dhashay degan Xabaal Barbaar 2 Cabdullaahi Xuseen Cali Cabdullaahi Kaabay 23 jir ah oo maqana ah kaasoo isagana gacan weyn ka geystay dhaqar badan oo lagu xasuugay muwaadiniin Soomaaliyeed oo aan waxba galabsan kuwaas oo xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida oo ay si wada jir ah ugu soo eedeysay inay ka wada tirsan yihiin kooxda Al-Shabaab iyo in ay hagayeen qaraxyadii ka dhacay magaalada Baydhabo gaar ahaan Hotel Bilan iyo maqaayada Badar soona indheeyeen geeyeenna si ay isugu qarxiyaan labadii ismidaamiye oo isku qarxiyay maqaayada Badar iyo Hotel Bilan dambigaas oo ka dhacay magaalada Baydhabo taariikhdu markay ahayd 13 bishii 2028 dambigaas oo ku xusan aayada 178 suuratul Baqara aayadaha 33aad 45aad ee suuratul Maa'ida iyo qodobada kale ah 221 440 222 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed dood dheer kadib maxkamaddu markay aragtay qiraalka eedeysane Sayd Cali Suurad Macalin Cabdi uu ka hor cadeeyay garsoorka hortiisa in uu sahmiyay soona indhandeeyay maqaayada Badar in uu u gudbin jiray Al-Shabaab xogaha dawladda iyo in uu amiir u ahaa koox amniyaad ah oo ka kooban 5 qof kuna qabteen Sayd Cali ciidanka amniga degmada Baydhabo asagoo wata bistoolad teete ah oo ay u soo dhiibeen ururka Al-Shabaab oo uu doonayay in uu ku dhibaateeyo muwaadiniinta reer Baydhabo eedeysanaha labaad Cabdullaahi Xuseen Cali Cabdullaahi Kaabay waxay xafiiska xeer ilaalinta ciidamada ku soo eedeysay in uu indheeyay soona sahmiyay Hotel Bilan oo uu isku miidaamiyay mid ka mid ah kooxda Al-Shabaab markay dhageysatay maxkamaddu codsiga xeer ilaalinta oo ahaa in eedeysanaha la waafajiyo sharciga markay dhageysatay maxkamaddu codsiga qareennada oo ahaa in eedeysanaha loo naxariisto sidaas darteed maxkamadda waxa uu cadaatay in labada eedeysane ay wada yihiin dambiiliyaal galay dambiga lagu soo kala oogay 1 dambiile Sayd Cali Suurad Macalin Cabdi 2 Cabdullaahi Xuseen Cali Cabdullaahi Kaabay waxay maxkamaddu si wada jir ah ugu kala xukuntay xabsi daa'in sidoo kale maxkamaddu waxay la wareegtay bistooladii teeteeda ahayd ee uu watay Sayd Cali Suurad Macalin Cabdi cidii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxa u furan raacfaan wabillaahi tawfiiq